maantay taariikhdu tahay 3 bisha Diseembar 2009 waa maalin murugo weyn oo soo yeetay bahda waxbarashada Soomaaliyeed waa maalin dhiig lagu midabeeyay qulubtii caddeed ee ubaxa waa maalin jahligii shaqeeyay aqoonyahankiina la duway markii qarax weyn uu dilay gudaha hotel Shamow halkaas oo xaflad qalin jabin lagu qabanayay ardayda maysatay jaamacadda Banaadir caafimaadka qaraxan ayaa waxa ku noqday 19 qofood inta la xaqiijiyay waxaana ku dhaawacmay 49 kale dadka qaraxan ku nafway ayaa waxay isku jiraan dhakhaatiir wasiiro iyo ardaydii qalin jabinaysay qaar kamid ah wasiirada halkaas ku nafway ayaa waxa kamid ah wasiirka tacliinta mudane Ibrahim Xasan Cadow wasiirkii waxbarashada Axmed Cabdullaahi iyo wasiiradii caafimaadka Qamar Aadan sidoo kale waxa halkaas ku nafway Dr. Shabiib oo asagu kamid ah macallimiinta jaamacadda wax ka dhigayay iyo waliba suxufiyiin kale iyo qaar kamid ah ardaydii qalin jabinaysay iyo asxaabtooda dhacdada weyn ee magaalada Muqdisho ka dhacday ayaa waxa looga baroodiqay dhammaan waddanka Soomaaliya iyo dabadiisa intaba waxaana si gooniya ugu baroodiqay bahda waxbarashada Soomaaliya ardada wax ka barata dalka Indiya waxay kamid yihiin bahda waxbarashada ee sida goonida ugu baroodiqday dacwadan xariistan ee ka dhacday magaalada Muqdisho haddaba si aan ardada dareenkooda wax ugu ogaano ayaan waxaa mikrofoonka la dhexqaaday qaar kamid ah ardada wax ka barata dalka Indiya adigu cabiraya iyo aragtidaada iyo fikirkaaga iyo sida uu aragtay ardadii walaalaha ee Soomaalida ah ee uu maanta ka soo garay dibadda qarxada ee ka dhacay magaalada Muqdisho sidee u aragtaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحنا محمد عبد العزيز طاهر. والله أردتي فرحي كدعي مثلا الشوق وهارين هذه بالنسبة وأرين عن عقل بني آدم في كثيرين إن مثلا تذكي أي إلى شنين تذكي أي دورينين تذكي بحثي تودي أقونيهم كودي والله يوم والله قتيو والله بابيو وأرين يقولون أبو أبو سيد ودحان أرضيدا ملو وجهنا أرضي الصوماليات هذه يعني نقولنا وحنا نحي تذكر قرار كان كيسنية تطلع تذكر متصد معتدة تذكر مركب تذكر معركتين أفضل أرضيدا وأيوة تذكر بريمتيدا أويان وحنا نحكوا بتعسيدين تذكر كنا كوي ونحي لاي حريص جناك ورابي تذكر كنا وحميبة والله إلهي صدق دقة أو تسيو والله ودحان مركز كثير أرتيدا ميرو في شوغان يو أمة الصومالية وميت ملوكواب قد بنا ترين كيس مركا ومقلي تحدين يو ملوكا أيانا سودريستي أنا من تحسن باللقبة وآدي هذا يعني بنا خيب نمرودي وأنا أحنا ولا يدخل كاجسني بل عقليني كاشلو ماركي waxyaalaha soo kale ficna mar labaad assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad ma saxay ay ardayda xiga walaal waa dareemta sidoo kale ardayda walaalaha ay murugaysan yihiin marka sidee kula tahay arday Soomaaliyeed oo 6 sano in ka badan ba waxbarashadoodii dhiganayay kadib maalintii ay goosan lahaayeen mirahooda ay loogu abaalguday qarax ama dhibaatooyin badan oo soo garay ayaga iyo waalidkoodii iyo waliba mas'uuliyiin kale oo u heelana in ay ardayda waxbarashadooda ku sii wadaan sida wasiirkii tacliinta iyo wasiirkii waxbarashada iyo waliba wasaaradda caafimaadka oo ayaduna si gooniya amooday jaamacaddu inay jaamaca caafimaad sidee u aragtaa adoo cabiraya fikirkaaga ama aragtidaada بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Cabdiraxmaan Maxamed Cumar waxaan joogaa waddankan Hindiya qaasatan Hyderabad waxaana kamid ahay ardayda wax ka barta waddankan Hindiya qaasatan Hyderabad runtii waxaan la qaybsanayaa murugada aadka u qaabka daran oo runtii aan dareemay markuu falka ay ka geeriyoodeen mas'uuliyiin iyo waliba arday miisaan isku lahaa shacabka ummadda Soomaaliyeed oo runtii baranayay muddo 6 sanadood ah finalkoodina ama gabagabadoodii intii la siin lahaa shahaadadii waxtar lahayd nafsadooda iyo waqtigii qiimaha qadarinta madnaa waxa waddanka wax u qaban lahaayeen lagu soo gabagabay geeri iyo dhaawac waxaan murugadaas iyo tacsiisaas bal la qaybsanayaa shacabkii ummadda Soomaaliyeed iyo ehelladii ay ka baxeen dadkaasi miisaanka culus ku lahaa ummadda Soomaaliyeed dadkii ku dhaawacmay Ilaahay inuu shaafiyan u rajeynayaa oo Ilaahay uga baryaa runtii wax runtii murugo kugu abuuraya qalbi jabna kugu abuuraya arday intaas san wax baranayay muddo intaas la eg wax ku baranayay
magaalo fooda ah dhibaato ka jirta maybe inay financial problem dib u keenay waliba ku bartay muddo 6 sanadood magaalo fooda ka jirto gabagabadoodina ku gabagabaystay geeri iyo dhaawac runtii waa arrin aad looga naxo haddaan nahay ardayda hindi wax ka baratana tacsiisan la qaybsanayna iyo murugadaas soo gaartay shacabka ummadda Soomaaliyeed annana u eegayn wasiirro iyo mas'uuliyiin waxaan u eegaynaa dadkii miisaaniyadda culus ku lahaa ummadda Soomaaliyeed oo wax u tiri lahaa berito dhalinyarada yaryarayd shacabku wax u tiri lahaa la qaybsan lahaa murugadan waddanka ka jirta iyo dhibaatadan runtii aadaan uga naxsanahay barnaamijkaas mar kale inuusan dhicin waan rajeynayaa dadkii waxaas geysteen waxaan ka rajeynayaa mar kale inaysan waxaas dadkaas siyaasadda shuqul ku lahayn ay u geystaan mar kale هي أرض كلادي وكبر أبي مجا هذا سيأرى كدعوي كدعوي مجرد المدرسة ما تقدر أرض بدن الصومالية كنا قوية كلوا المسلمين بدن دولة الصومالية كذا بيرود خاطر تي معلمين تي أرض أصلا أور هذا جاي كنا بران أيضا وقت إنه كذا حالة أضل وطن الصومالية كذا كارهان مجرد المدرسة أنا يوم رجع محمد عبد العال إحنا أرض وخبرتها حركة إنجيل كارهان مجرد هيدرباد والله مصيبة دي كده على كارهان هوتيل شامو وهي هاد مصيبة شافتي أرض الصومالية ملوا بيجوان وحنا تعسير هو الأمرنا الذي قرر ذلك الإنتاج أرض الصومالية يو ملاحظ الصومالية ومتقارن كبير يوتيوب بس